sida aan hore u baahinay ama aan u sii deynay 19 bishii bishii September 19 bishii Agost 2022 waxaa jiray video la duubay 8 Agost 2022 oo nin dhar cad wata isla markaana qori wata garaacaya ilmo yar isla markaana xabad ridaya ayaa baraha bulshada si aad ugu faafay kaas oo waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed qalqal badan ku abuuray sida videogaas u dhacay marka waraysigii aanu bixinay 19 Agost ayaan ku sheegay in arintaas ay tahay video la edit gareeyay aysan ahayn arin rasmi ah oo si rasmi ah aan u dhicin sida videogaas loo edit gareeyay ama loo jarjarana ay tahay si provocation ah oo loogu talagalay in lagu cadeeyo in ninkaas wiilka yarka uu dilayo haddaba sida maantaba aan rabno inaan ummadda u cadeyno waxaan halkan maanta idinku soo bandhigi doonaa waaridka dhalay wiilka yar ee la ulaynayo isla markaana agtiisa xabadda lagu ridayo ninka xabadda riday waaridkii dhalay ninka duubay videoga oo wax ujeeddo guracana aan kala hayn laakiin video uu duubay oo saaxiibadiis u diray saaxiibadii ay jarjareen oo social media ku soo galay marka waxa ila taagan maantay waalidiintii dhalay wiilka yar oo la uleeyay ninka xabadda ridaya oo wiilka yar xabadda ku ridayo ulaynaya iyo waalidka dhalay wiilka videoga duubay iyo wiilka yar oo la ulaynaya waalidkiis marka iyo wiilka yar ruuxiisa waana la taagan yahay marka waxaan rabnaa inaan ummadda u cadeyno in sida loo qalqalgaliyo dadka loona tusiyay aysan ahayn isla markaana dhanka xun ee negative-ka uu leeyahay social media ay leeyihiin ay tahay wax provocation ah oo waxba ku jirin in dadka lagu qalqalgelin karo waxaan rabnaa inaan u cadeyno waalidiintii ama ummadda Soomaaliyeed arkay videogaas uu qalqal ku abuuray inay raalli ka ahaadaan cidda falkaas samaysay ruuxeedana lagu raad joogo insha Allahna maxkamadda awoodda u leh aanu soo hortaajin doono marka aniga shirkayga jiraad intaas uu ku og yahay waxa aan ku wareejin doonaa oo noo hadli doona aabaha dhalay wiilka la uleeyay oo xabaddana lagu riday in sida provocation-ka ah wax loo sheegay aysan ahayn sida ay wax u dhaceen waa mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن تلامة صحافة شرطة له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن تلامة صحافة شرطة له وحن هل كان كعدنا يا سوشيال ميديا وركي فافيان إن بين إيتهاي ونولي ويلك عن لي هذا المختار آدم ويبط قبو وحل الشيء كان وان بين هل كان وحن أسوء تاج إن عندي إنه ويلك ينولي ونوبت قبو أنا الوقل دمي عيال وير الوقل دمي وأنا أرضي وأنا الوقل دمي واحد دبعته وسوق جارت المدري هذه هذا أنا وما صنع ودعي لنا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد أنا wiilka wax duubay aabihiis oo muxuu ahaayay 9 bishii Agost arintii dhacdadii baraha bulshada aad loogu khalkhalgeliyay arrimaha xun laga faafiyay inaysan jirin wiilkaygu wuxuu ahaa wiil maartay ku talagal aan u duubin wiil walaalkiisa oo saaxiibkiisa oo muxuu ahaayay jooga Nairobi ayuu tusaale u ahaa ولا وحمر كده عي فيري سون هذا ودن يعني وكعصبة مارتي ساس أرنت أي هيد عيال ورده مركنا صوررين يدو نبحوق لنوهايسا ومحوها هي حافظ يود المارت وحكرب بحللاي هي أنا جا وعني نكلي هذا باكستان المها مارت يعني ماشى كوقبتي المها حاجة فينا أنا جا وعني الحمد لله رب العالمين وليسبان أو نصارنا ayaa ninkaas maaragtay yani uu naga dul qaaday wax meesha ku dhintayna ma jirin wax ku dhaawacmayna ma jirin marka waxaan rabnaa inaan ogeysiino ummadii khalkhalkaas la geliyay ama wararkaas yani sida qaladka inta loogu jarjaray meesha dad in lagu laayo looga dhigay inay waxba aysan ka jirin ayaan u cadeynaynaa muxuu ahaayay baraha bulshada iyo dadkii inta daawaday oo arinta ka xumaaday inay wax jiray aysan ahayn assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحن هاي ننكي برا برشة الصور جاي عيالك حنشفيها هاي حبضنا الرداي مركا وحي هايين عيال يروح حافظة وقت هذا جرو اسك عيال ويرا مركا حافظنا دقناي وحي صوع والدين تي دتك ماشي دقنا صوعي سيداسان ugu soo baxay anuna waxaan ahay rag oo maartay amniga qayb ka ah la og yahay xaafadda degan sidaasan ciyaalkaas markaas meesha ugu qabtay mid wax watay iyo midaan wax wadanba inta meeshan ku wada arurnay kilibkaas yaroo la duubay oo noqday dadka ka wada yaabshi oo ahay inaan dilaayo amba aan xabad ku dhifahayo waxaan cadeynaa inaan anigu cidna dilin cidna dhaawicin waxa meeshaas lagu haayana ay hayaan ciyaal yar oo xaafado ciyaal weerar iska ah waalidiinto ay wacayna meeshan wada deganeen waxa dhan wala ciyaalka xataa meesha la wada deganaa wala is wada yaqiin wax aan geysto falaaba yaraatay oo dhacdaha meeshaas ka dhacana ma jirin kulay dharkii waqtiga maalinkii aan watana cid si fiican u fiirsatana way u jeedaa oo asaas lagu qancay dharka xataa waa soo qaatay waxa iga maqana waa wax amnigu shaqo kulli oo kale waana mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sida horeba aan kugu sheegnay ujeedaduna waxay ahayd inaan dadka u cadeyno in waxaas videogaas editka lagu sameeyay la edit gareeyay maxay ahayd ujeedada laga lahaana ujeedada guracan ay ahayd oo loogu talagalay in dadka lagu qalqalgeliyo aanu ka daba tagno soona cadeyno ummadan u cadeyno fariinta maanta meeshan aan ka jeedinayno ka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ahaan iyo hay'adaha ammaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan ummadda u cadeynaynaa in waxyaabaha provocation-ka ah oo social media ka dhacay aysan inta badan run ahayn sida wax u dhacaana dadku aysan u rumaysanin waalidkan aan lagu qalqalgelin ciddii ku lug leeyata oo ku lug lahayd falka noocaasna ilaahay idinkiis maxkamadan horkeeni doona qofkii jarjaray oo videoga edit gareeyay si uu ummadda u qalqalgeliyo markii wuxuu dhibaato u geystay publicka security nabadgelyada guud uu dhibaato u geystay oo dadkii ku qalqaliyay marka qofka hadii ilaahay yiraahdo maxkamadda awood u leeyahay isagana soo hortaajin doona oo arki doontaan taas halkaas noo ahaanaysa dhanka kale waaridka waxaan ka codsanaynaa iyo dadka kale ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha provocation-ka social media aan duuduub loo laqin oo loo aaminin sida waxa loo arkay wuxuu been bay noqon karaan run bay noqon karaan hay'adaha ammaanka diyaaradina ah inaga ka shaqeynayna inaga mas'uuliyaddeena tahay inaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalkan ka shaqeyno waajibaadkeena ay tahay ummadda Soomaaliyeed wixii dhacana in ciidamada la soo socodsiiyo laguna garab siiyo waxyaabaha noocaas in dadka laga celiyo waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh